waxaan maqalnaa waxaa jirta shaqo la'aan baahsan oo wadankii gudihiisa ka jirta dhalinyartii way tahriibayaan oo badaha ayay gelayaan sidaa daraadeedna way ku dhammaanayaan iyagoo moodaya in nolol taalo wadanka dibadiisa amaba Yurubta hase yeeshee markay Yurubka tagaan waxay la kulmaan inay ceer qaataan guri ay ku jiraan shaqo aysan helin 5 sano ama 6 sano ama 10 sano oo noloshooda ah ee dib u dhacdo sababtuna ay tahay in ay la qabsanayaan xaaladda iyo dhaqanka wadankaasi ka jira 10 sano ka bacdi ay ku soo laabanayaan iyagoo dhaqankoodii is bedelay ummadii wadanka ay kaga tageen ka bedelan oo iska dhigaya inay leeyihiin social intelligence ama aqliyad bulsho oo ay ka soo minguuriyeen wadanka dibadiisa dhaqankoodiina tuuray oo wadanka markay yimaadaan wax kale ay iska dhigaan okay daawadayaal su'aal ayaan idin weydiinayaa maxay tahay sababta keenaysa in uu qabto shaqo uu qaban karo qof muwaadin ah mid ajnabi ah nin dibadda ka imaaday inuu qabto shaqo uu qaban karo qof muwaadin ah oo wadankii gudihiisa jooga shaqo la'aan ay hayso u baahan qoyskiisu ay baahan yihiin isaguna u baahan inuu noloshiisa horumariyo maxaa qasbaya in la siiyo shaqadaasi qof dibadda laga keenay xirfad ahaan aqli ahaan iyo xoog ahaanna aan ka wanaagsanayn midka dibadda laga keenayo السلام عليكم داوديال وايد سلام يا ميل كستا او الدنيا ka joogtaan waa maalin kale oo qurux badan iyo muuqaal kale oo xiiso badan waxaana Saciid Galeer halka ay ka daawataan waa Saciid Galeer hadii aad channelka ku cusubtiin waa idin soo dhaweynayaa oo gacmo furan iyo qalbi furan ayaa idin ku soo dhaweynayaa taageerayaashii kuwii hore waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin mar waliba waxaad tihiin walaalahay aan jecelahay maanta waxaan ka hadlayaa muuqaal ku saabsan amaba dhibaatada ay ku hayaan dadka ajaanibta ah ee wadanka gudihiisa jooga dhalinyarta ama dadka muwaadiniinta ah ee wadanka gudihiisa jooga ay ku hayaan kuwa dibadda ay ka imaaday yani dadkii waxaa jiro company oo kale shaqo ayuu sameysanayaa ama wuxuu safranayaa business ayuu furanayaa wadankii waxaa jooga kumanaan ninka company-ga furanaya waxaa jooga kumanaan ama in adeeradiisa jooga ama walaalihiisa jooga ama dad Soomaaliyeed oo qualification-kii ama xirfadii ay shaqada ku qaban lahaayeen heesta ayaa jooga hase yeeshee intaas oo dhan lama shaqaaleysiinayo nin ayaa laga dalbayaa Bangladesh Pakistan India ama Kenya ba aan dhaho meel adiga wadankii ka baxsan ayaa laga dalbayaa nin ama gabar sidaadaadeed waa laga shaqaaleysiinayaa shaqadaasna waxaa qaban kara qof muwaadin ah oo wadanka gudihiisa jooga ayaa qaban kara sidaadaadeed maxaa qasbaya maxaa keenaya in intaas oo dhibaato ah ay dhacdo okay waxaan idin hayaa marka oo aan jecelahay in aan idin la wadaago muuqaal yar oo laga baahiyay telefishinka Universal adiga dhowr maalmood ka hor 2 maalmood iyo 3 maalmood ka hor laga baahiyay kaasi oo tilmaamaya amaba ka hadlaya dhibaatada ay ku hayaan dadka ajaanibta ahi kuwa wadanka gudihiisa jooga ee muruqmaalka ah waa kana ila daawada waxyar Ibrahim Xuseen Faarax iyo Sakariye waxa ay aroorre soo galaan shaqadan adag oo ay aad u kala yar yihiin dhididka ka dhaca iyo dheefta ay ka faa'iidaan dhaqaalaha soo gala oo yar ka sokow waxa ay dhibaato u arkaan rag wadamo kale u dhashay oo shirkaduhu ay soo dhoofiyeen si ay uga shaqeeyaan dhismayaasha guryaha horta rag Hargeysa dhisi jiray magaalada Hargeysa wadiga arka isma qurux badan oo casri ah ayaa ka dhisan shaqaalaha imika meesha taagan waa shaqaalihii xirfadda u lahaa shaqada waxa weeye marka dad ajnabi ah ayaa la keenay haddana dadkaasi waxay kordhinayaan oo shaqadii ka baxsan oo kale ma garanayno dadkaas ka kal jeclaystay shirkadaha horta inta badan soo saaray dadkan ajnabiga marka dadka waxay u dhisayaan qaabka yar ay u yar sharxi jireen oran jireen cadaan ba ku shaqeynaya si loo aamino marmarkii oo shaqaalihii muwaadiniinta ahaa si aan cid ka qurux badnayn aanay u dhigin ayaa loo soo diriyay nin ajaanib ah horta waxaana iska jirta dadkeena runaantii ayaa
ku dhacay dee dhibaato yaro ajaan okay daawadayaal meeshan waxaa taala nin ajnabi ah ayaa la keenay shaqada la qabanayana waxaa waaye shamiito ama carro la qasayo kulley waxaan u malaynayaa xirfadaasi in uu leeyahay qof kasta amaba shaqaalaha halkan jooga ee dadkan ka shaqaynaya ee muwaadiniinta ah inay qaban karaan ninku engineer maahan wada ma dhisayo guri dheerna ma dhisayo waxaa la siiyaa guryaha yararka ah ee intaa la eg waxaa la qasanaya waa carro sidee marka ay ku dhacaysaa iyadoo ruux muwaadin ah isagiina uu baahan yahay ilmihiisina ay baahan yihiin shaqadana ay u baahan yihiin in nin laga keeno wadanka Pakistan ama meel ka baxsan ama Bangladesh andho si uu shaqadaasi u qabto dhabaantii ma ahan wax la aqbali karo mudasar maxamed oo ka yimi wadanka Bangladesh waxa uu noo sheegay in uu yimi kadib markii ay u yeedhay shirkad hore ay shaqo uga heleen saaxiibadii Here I'm working only. I skill that work in Pakistan also. waxaan ka soo shaqeeyay Pakistan waxa kale oo aan ka soo shaqeeyay Dubai waxa sidoo kale aan ka soo shaqeeyay Saudi Arabia waxaan leeyahay xirfado badan Before I have not. kahor intii aanan go'aansan in aan halkan imaado waxaan helay oo ogaaday in wadankani yahay wadan wanaagsan oo laga shaqayn karo oo cimiladiisu ay fiican tahay kadibna waan imi si aan u ogaado sida ay wax yihiin I'm see what about that. shaqaalaha ajaanibta ay kuma eka kaliya dhismaha guryaha hase ahaatee waxa ay ka howlgalaan meelo ay ka mid yihiin hoteelada iyo makhaayadaha cuntooyinka waxaana su'aasha isweydiinta la ay tahay maxay tahay sababta lagu doortay ajaanibta iyadoo la aaminsan yahay in shaqooyinkan ay qaban karaan muwaadiniinta maamulaha makhaayadda Berbera Cafe Saciid Maxamuud Jaamac iyo Axmed Hayba Nuur oo haysta makhaayadda Sima oo ku taala magaalada Hargeysa waxay labadooduba sheegeen in shaqaalaha muwaadiniinta ahi aanay u tababarnayn diyaarinta adeegyada ay u baahan yihiin macaamiishoodu annaga imika waxaanu shaqaynaynaa operate garaynaynaa muddo 4 sanadood bishan saddexaad bay 4 sanadood noo haysaa 4 sanadood waxaanu kaliftay dad baan soo saarnay runta waxaanu ku bilownay 14 nin oo ajaaniba iyo 12 qof oo Soomaaliyeed aynu ku bilownay marka majority waxa ay ajaanib maantana ajaanib waxa weeyaan waa 3 qof oo kaliya ka ajaanibka waa in tigid loo soo keenaa waa in guri loo sameeyaa waa in loo sameeyaa waxa la yiraahdo iqaamad dawladdu waxay ka qaadanaysaa sanadkii walba $400 qofkiiba marka dee qofnaba business haysta uma jeedo inuu qof inta soo kharash geliyo dadkan waxa uu keenaa waa iskuulay gala shaqadii bay garanayaan oo waa la train gareeyaa halkan iskuuladii ma jiraan طباخيدين way joogan oo dadkii wax shaqeynaya way joogan oo wax kariya way joogan oo cuntadooda dawad garanaysaa oo waa taan weligeed ku soo noolay laakiin wax horumar ah oo halkii ka sii qaado oo dadkii mar haday dabadaha u baxeen oo ay arkeen cuntooyin de kala duwan inaga waa tii aynu ku dhalanay ayuu bay wadaan raggan maqaayada heesta ee maqaayadu furan tahay waxay leeyihiin muwaadiniintu uma tababarna in ay sameeyaan ama ay cuntada kariyaan adduunka wala socotaan daawadayaal qofku marka uu company u shaqeynayo waxa la siiyaa tababarkaas marka la siiyo waxa loo sharaxaa ama waxa la geeyo recruitment ayaa lagu sameeyaa oo dib sidii uu meeshan kaga shaqeyn lahaa ayaa loo tababaraa ka bacdi ayaa shaqada la siiyaa marka أو مشار لو قرأ وقيلان هذه 3 بلود عمل أو حال لقصة من recruitment سوء شقة ولا قبصه وحي شقة ماشي لقى قبلها أنا وكقبته سيادرادت هدي آذن شقالها أذو آذن تببرين وآذن تببر أسمينين لأن ودنكي هدي آذن سنين كانوا حوما قرنا يعني سيدو عنتدي لو كلها كلمة يقانو هدي آذن أذو برين وآذن تببركي آذن سينين حقوق كينيا ما قرناyo sida daraadeed waxa wanaagsan in qofka muwaadinka ahi hadii uusan waxaan aqaanin tababar la siiyo markii uu tababarkii uu soo dhameystana shaqadii loo qoro muhiimadda koobaadna laga dhigo muwaadinka haduusan garanaynin tababar la siiyo maxaa yeelay wax waliba barasho ay u baahan yihiin adduunkan qofku isagoo wax yaqaan lama dhalanin sida daraadeed waxa loo baahan yahay in muhiimadda koobaad la siiyo muwaadinka mar waliba oo uu sareeyo heerka shaqo la'aantu haddana shaqadoonka Soomaaliland waxa suuqyada kula hirdimaya shaqaale ajaaniba oo laga soo waariday wadamo kale wasiirka shaqo gelinta Soomaaliland Marwo Hinda Jaamac Gaani
ayaan weydiinay inay jirto siyaasad arrintaasi ku aadan. waa su'aal aad u wanaagsan Nuruddin. runtii dowladdu dadaal dheer bay u martay qaab kasta oo ay bulshadeeda shaqo ugu abuuri lahayd, hadday tahay in la kantaroolo ama la ilaaliyo shaqooyinka uu muwaadinku qaban karayo, iyo haddii ay tahay in la raadiyo iskuullo loo dhiso ama lagu tababaro dadka muwaadiniinta ah ee u baahan xirfadda. sidaad ogtahay waxaa inala jooga hay'adda GIZ ee uu dalka laga leeyahay Jarmalka, taasoo gacanta ku haysa labadii iskuul ee dalka ku ooli jiray ee ahaa Burco Institute iyo Hargeysa Institute. waxay ku yimaadeen dadaalka runtii xukuumaddu ay ku doonayso in dadkeeda ay horumariso, gaar ahaan dalkeena oo shaqo la'aan dadkeedii uga tagaan dadka dunida inteeda kale ku noolina ay inagu soo qulqulayaan, ay u caddahay inay jirto xirfad la'aani ee aanay jirin shaqo la'aan. wasiirada la wareysanayo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee Somaliland, hase yeeshee waxaan aad uga xumahay in aysan jirin policy ama siyaasad lagu hago dadkan shaqadaas raadsanaya ee dibadda ka imaanaya. okay, haddii uu ninku yahay macallin jaamacadeed amaba aqoon loo baahan yahay waddanka gudihiisa looga baahan yahay, haddii uu hayo ninka waa la soo dhoofsan karaa, aqoontiisana waa laga faa'iidin karaa. haddii uu yahay dhaqtar waddanka gudihiisana ay ka jirto baahi loo qabo, isagana waa la soo dhoofsan karaa oo baahidaas waa laga faa'iideysan karaa. haddii uu hayo critical skill amaba xirfad halis ah ama adag oo waddanka gudihiisa aan laga helaynin loona baahan yahay, waa la soo dhoofsan karaa. hase yeeshee in maqaayad laga shaqeeyo iyo in la qaso carro dhab ahaantii ma ahan shaqo looga baahan yahay inuu qabto qof ajnabi ah. muhiimadda koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaadba muwaadinka ayaa iska leh, protectionkana waxaa iska leh dowladdu in ay samayso oo ay dadkaasi ay u samayso ka hortag amaba ilaalin ay u samaynayso dadka muwaadiniinta ah. shaqo uu qaban karo qof muwaadin ah inuu qabto qof ajnabi ah oo meel dheer ka imaaday, meel ka dhac ay dhab ahaantii nagu tahay. maalin kastana waxaan aragnaa inay dhalinyartii tahriibayaan oo ay dibadda u socdaan oo ay badaha ku dhammaanayaan. sababtuna waxay tahay ciriirigii suuqa, shaqooyinkii ay qaban lahaayeen ee fududaa oo uu qabanayo qof dibadda ka imaaday. taasina waxay u baahan tahay in wax laga qabto. haddii aan wax laga qabanina dhab ahaantii waxay keenaysaa culeys aad u fara badan, ayay keenaysaa iyo dhibaato aad u baahsan. aakhirkiina waxaa laga yaabaa in ay dadkan muwaadiniinta ah ay sameeyaan kacdoon ay kaga soo horjeedaan dadka ajaanibta ah, taasina la yiraahdo laajinacayb, sida ka dhacda South Africa oo kale inay dadku sameeyaan. haddii ay dul qaadan waayeen shaqooyinkan ay qabanayaan dadka muwaadiniinta ah ee dadka ajnabiga ah ee la siinayo shaqooyinka ay qaban lahaayeen dadka muwaadiniinta ah ee la siinayo dadka ajaanibta ah, taasina ay magac xumo ee waddanka u keento. daawadayaal aad iyo mahadsantiin daawashada muuqaalka. waxaan ahay Saciid Galeer oo idin soo jeedinaya ama idinla wadaagaya muuqaalkani aadka xasaasiga u ah. intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaalkiisa xiga daawadayaal waxaan leeyahay nabadgelyo.